السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين وايد سلامي dadka meesha igu soo dhaweeyay waxaan mahad gaar iska leh dhammaan dadkii ii soo duceynayay ii doodayay maalin waliba ii soo duceynayay ay ugu horeeyaan dadka baraha bulshada ka soo doodayay ama ha ka hadlaano qadiyadeyda ama si wanaagsan uga hadlaano ama si xun ha uga hadlaano ay ahaayeen dad aniga xaggayga u soo jihaysan aad ugu mahad celinaa dhammaantood. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan reer Somaliland walaalahay reer Hargeysa oo kaliya ma ahayn dadkii ila joogay gobolada Somaliland oo dhan waa leegaga imanayay oo waxa lagu imanayay saldhigii aan ku jiray wax allaala waxaan u baahanahayna waa leela joogay oo dadkayga ila joogay ma ahayn nin agoona oo meesha iskaga jirmaan ahayn nin dad lah baan ahaa dadkayga la joogay garabkaygaan haystay dhammaan waxaan u mahad celinayaa booliiska Somaliland oo si qurux badan igula dhaqmay oo iseexiyay meesha VIP-da saldhiga waxaan aad ugu mahad celinayaa taliyaha booliiska Somaliland General Dabagale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biix Cabdi sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadkii ka soo qayb qaatay ee u soo halgamay in aniga si qurux badan la soo daayo adeerkay duuliye sare Axmed Dheere iyo waxaan u mahad celinayaa indhihii aan ku soconay adeer Yaasiin iyo waxaan kaloo mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee ugu horeeyaan hooyooyinka reer Somaliland ee horjoogayaal ay u ahaayeen hooyo Nasro iyo hooyo Amaal iyo hooyo Farax iyo dhammaan hooyooyinka reer Somaliland ayagana iga harin dhammaantood way mahadsan yihiin. waxaan aad ugu mahad celinayaa walaalahay saaxiibaday oo ii soo huray waqtigooda magaalada inta ka baxay yimiday magaaladii aan ku xidhnaa saldhiga maalin waliba ila taagnaa xal waliba ila doonayay walaalkay Cabdullaahi aad u mahadsan tahay sidoo kale waxaad gadaal daba nagula soo biiray walaalkay Muuse Xabad asiguna aad u mahadsan yahay dhammaan intii garab noo geysatay ayagana aad u mahadsan yihiin. Thank you.